waxyaalahan la isku haleynay talagal u baahan waxaa kamid ah cimilada, siyaasadda iyo ibni aadamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saddex la iskuma haleeyo. Ta ugu horeysa waa cimilada. Cimilada tiyo TV ka aragtay ama journaalka lagu soo qorayba in uu beri roob da'ayo ayaa arki kartaa in cadceed soo baxday ama tiyo cadceed ku arkayso cadceedii ay dhowr saacadood ka baxday oo roob soo dii karaa. Marka cimiladu waxay kamid tahay waxyaalahan la isku haleyn karin oo ay tahay inaad adigu diyaar u haato oo aad iska haysato waxyaalo roob hadduu da'o aad ka qaadan karto sida dallada roobka ama cadceedu haddii maalinta aad u kulushahay dallada wada isticmaali kartaa, hadduu roob da'o wada isticmaali kartaa. Dalladaha qaar yar baa jira oo jannada iska ridan karto, gaadhiga ku ridan karto. Sidoo kale kabaha laga gashado roobka haddaad gaadhigaaga kugu jiro markaste markaad gaadhiga aad wadato hadduu roob da'o waad xiran kartaa. haddii matalan office-ka joogto roob da'o dee waad baxaysaa kabahaaga baad iska soo xiran. Marka in aad adigu isdiyaariso ood ku talagasho, talagalkuna waa wax wanaagsan, waa wax kuu sahlaya safarka, waa wax kuu sahlaya journey-ga baa la yidhi daraartaadaas waa wax kuu fududeynaya marka wax lagu talagalo. Tan labaad waxa weeyaan siyaasadda. Siyaasaddu iyadu way shaarar badan tahay, hadba xaggii ay maslaxadu ka dhowdahay ayay u riixmataa amba loo wareejiyaa amba loo jeestaa. Matalan waynu aragnay iminka social media laba la isku haystaa, saddex baa la isku haystaa, tiiman baaba la samaystay. Bacdamaa siyaasaddu ay wajiyo badan tahay oo marna la heshiin karo, marna la isku dhici karo, oo haddana laga heshiin karo. Beritoole labadii qof amba saddexdii haystay markay heshiiyaan labadii tiim ee xagga cayda la soo fadhiyay talow maxay dareemi karaan. Nin waynu hadal ka dhacayna dhibaatadeeda leedahay. Wajigii lagu ogaa iyo kartidii lagu ogaa iyo furadnimadii lagu ogaa sidii hore arrimuhu ma ahaanayaan haddii lagugu soo hagaagi kari maayo. Marka inaad iska daawato game-ka ayaa malaha roon. Siyaasaddu waxay kamid tahay waxyaalaha shaararka badan leh ee mar walba isbedela. Arrinta saddexaad la isku haleyn karin ayaguna waa ibni aadamka. Ibni aadamku waa 360 degree, waa 360 degrees weeyaan, sidaas u wareegaan. In qofba sacabka ku tumaya kugu faraxsan in meel kasta ka hambaliyaya maalin maalmaha kamida waxa dhacaysa in aad fikirkaaga cabirato, inaad fikirkaaga dhiibto, inaad raygaaga dhiibato. waxa dhacaya qofkii sacabka ku tumaya meel kasta kaaga hambaliyay inuu ka soo horjeesto. waxyaalahan la isku haleyna ibni aadam baa jira. xabada afraadna ku daraato mise waan ka daaya ma ku biiriya. xabada afraadna waxa weeye gabar maseertay baytaa waa ka reebaya amba igu dhacdaa inaan marmar shucuurta ibni aadamka ka mid tahay. markaa saddexdaa baan ku daynayaa. ta ugu horeysa la isku haleynayn waa cimilada, ta labaad waa siyaasadda, ta saddexaadna waxa weeye waa ibni aadan marmar waji loogu soo hagaaga ma leh. marka haddii aad doonaysaba inaad ka fikirtaba isku haleyn, ilaahay isku halee. ilaahay haddaad isku haleyso mar walba waxaad dareemaysaa inaad tahay qof xor ah. xornimaduna kama dhigno waxaad doonaysad ku hadal sidaad doonaysad yeel. xornimadu waa adigoo shucuurtaada cabiraya oo mar walba eegayana inaad qalbiyada dhowrto. markasta qalbiyada inaad dhowrto ku dadaal sida adigu u jeclaan lahayd in lagu dhowro dadka u dhowr insha Allah.